waxaa ka jira deegaanada ay xukunta degmada Balligubadle shuban biyooda ka dilaacay deegaanadan iyo xanuuno kale oo ka mid tahay kixda jadeecada. haddaba mar aanu saaka subaxii booqanay dhakhtarka Balligubadle ayaan waxaanu la kulanay dad jiifa waararka cisbitaalka oo isku jira caruur iyo dad waaweyn. Xuseen Xasan Cali maamulaha cisbitaalka Balligubadle ayaa warbixin kooban naga siiyay xaaladaha caafimaad darre ee ka jira deegaanka. sidoo kalena waxa uu noo sheegay waqti xaadirkan in uu ambulaasku hadda ku maqay dad shuban biyood hayo. marka hore waxaan u mahadnaqayaa TV-ga Homecare aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida aad nooga warhaysaan ee noola shaqaysaan ee marka ay wax dhacaan iyo marka ay wax wanaagsan yihiinba labadaba aanu aad noogu tixgelisaan. runtii marka goobtan aan fadhiyaa waa goobtii xanaanadii Balligubadle. waxaa maanta halkan ka jira shuban biyood baa ka jira. shuban biyoodkaasi runtii waxa imika noo yimi oo na soo gaaray 8 caruura waa inta jiifta cisbitaalka iyo 4 qof oo dad waaweyn ah. intaas waa inta cisbitaalka jiifta. 32 qof waxaan ku daweynay imika in this week u dambeeyay waxaan ay nagu bilaabmeen bukaan socod baan ku daweynay. waxa iyaduna imika la soo wadaa kaabada bari dad baa laga keeno way jiifaan. bireeqa waa laga keeno way jiifaan waa soo aragteen. kaabada bari imika waa laga soo sheegayaa gaariga ambalaaska ah baa ku maqan oo imika soo sida dad. marka runtii waxaan halkan ka cadeynayaa wasaaradda caafimaadkuna way ogtahay. runtii waxaan ka cadeynayaa inuu jiro horta wixii shuban biyood loo oran jiray. xaaladiina aanu gacanta ku hayno xaaladii aanay faraa ka bixin oo wixii aan u qabanaynay dadkii imika aanana gacanta ku xanuuno kala iyo dadku leeyihiin way jiraan sida jadeeco oo kale kixo oo kale kuwaasi wax ma ka jiraan. runtii way jiraan laakiinse markaynu eegno wuxuu ka soo talaabaa kixda iyo jadeecaduba waxay ka soo talaabaan dadkay hayaan waa dadkii xuduudka ka sarreeyay. marka waan ku daweynaa meesha kixid way noo timaadaa oo way jirtaa waxaanay ka soo talaabaan dadkii bilaa talaalka ahaa ee xagga Itoobiya joogay ayay aad waliba tarab u haysaa. dadkan imika daweynayna waa dadkii Balligubadle xoolo ka baxeen ee soo degay. marka biyihii oo nadiif ahayn dadkii oo aan waxay cunaan bahaysan abaaraha way keenaysaa dhibaatada ugu badan ee jirta waxa koos garanaya abaaraha. hayeeshee shuban biyoodkan iyo xanuunadan kale ayaa ka jira deegaanada Balligubadle muddo 3 bilood ah waxaana sababeen in muddadaasi 3 bilood gudahooda ay u dhintaan caruuro koobani. ilaa haatan wax gurmad caafimaad ah muu soo gaadhin ha ahaato xukuumadda ama hay'adaha madaxa banaane. Cabdiraxmaan Samri TV-ga caalamiga Homecare TV degmada Balligubadle.